السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة وناكسن maanta oo maalin jimco ah aniga iyo akhyaar kale culimo ila socoto waxaan safar u nahay magaalada la yiraahdo Portland oo ku taalo Oregon, gobol la yiraahdo Oregon. saaka aroortii horaan soo baxnay, hadda magaalada waxba nooma jirto, mar dhow waan tegi doonaa insha Allah. hadda waxay inoo jirtaan maleynayaa saacad ka yar. sida la socotiin shalay waxa baraha bulshada la soo geliyay wiil Soomaaliyeed oo la sheegay inuu ahaa ama kamid ahaa dhalinyarada wada taraaga, salaad isagoo tukanayo oo gaarigiisa ka degay ayaa gaari kale sida la sheegay taraag kale ayaa si kas ah loogu dhuftay, gaarigii dilayna meeshuu ka cararay. saan rajeynayno walaalkaas khaatimo wanaagsan oo ku dhintay, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. laakiin meeshaas waxaa ku jiro casharo badan ku jiro oo aan isleenahay waa muhiim in laga faa'iideysto ama bulshada lagu baraarujiyo Soomaalida, gaar ahaan dadka ku tukado meelaha public ah. dad badan waxaa jiro markay salaada qabato laga yaabo haddii safar ku jiraan, haddaanay ku jirinba dukaamada waaweyn baarkinada ku tukadaa jira. in badan waxaan arkay gabdho xijaaban oo dukaamada waaweyn baarkinadooda gaarigooda agtooda ku tukanaya. runtii waa salaada meel kasto ku qabsana ku tukato waa muhiim, laakiin haddana markaad isleedahay nafsadaada dhibaa soo gaari kara ama aad joogtid wadan aan diintaada iyo salaadaada iyo waxaas aan aad u aqoonin oo aan muslim ahayn, inaad taxadirto waa wax wanaagsan. ibn aadanka nafsadiisa waa qiimay leedahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa leeyahay walaqad karramnaa bani aadama. ibn aadanka Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u sharfay, marka nafsadaada inaad ilaalisid khuduu xidrukum. waatu xataa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayad quraan ku leeyahay in yani qofka uu feejigan yahay oo saroorninkaada iyo agagaarkaada wax ka dhacay aad la socotid waa wax wanaagsan. sidoo kale caalamka wax ka dhacayo inaad la socotid waa wax wanaagsan. marka qofka inuu iska habasleeyo oo iska socdo oo khabaarmugu iska ahaado wax wanaagsan ma ahan. marka halkaas waxaan ka baran karnaa inkastoo walaalkaas uu khaatam wanaagsan ku dhintay isagoo salaad ku jiro, gacan ka xaqdaran ay dishay, haddana in la taxadaro ayaa wanaagsan, gaar ahaan gabdhaho kale inay taxadaraan. dhalinyarada uberka wada ama uberka ama liftiga waxaa laga yaabaa dad badan oo waddamo kala jooga muuqaalkan daawanayo inaysan aad u fahansanin uber iyo lift, laakiin waa sida taxi oo kale. dhalinyarada Mareykanka joogtay iyo Yurubtaas iyo Carabaas aad looga yaqaan. dabcan waxaa dhacda salaada markay qabato inay meesha soo gaaraan ay ku tukadaan, gaar ahaan salaadaha haddii aan la sugi karin maqribka iyo fajriga oo kale, iyo laga yaabo inay meel aan munaasib ahayn ama aan safe ahayn ay ku tukadaan. dhalinyaradaas cashir muhiim ah meeshan ugu sugan oo raba inay taxadaraan. oo aniga in badan wallahi waxaan arkaa aniga oo meel maraya waxaan arkaysaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo salaad meel ku tukanaya oo islahaya mataqaana shaqada dib ugu laaban ka salaada tukatid. mararka qaarkood laga yaabo meesha ay ku tukanayaan inay tahaba neighborhood ama xaafadahan waxaan ognahay dadka inay hubaysan yihiin. qofaa laga yaabaa inuu qori iskala soo baxo uu dhibaato ku gaarsiiyo, hadhow uu yiraahdo nafsadeedaan u baqay qofkan areadeyda ama aagaygu soo galay, waxaana weliga arkin uu sameynaa. dadka qaarkood weligood baxtaa qof tukanaa maana arkin. marka taxadar ha la muujiyo, geesaha la iska eego, hala taxadar insha Allah tacaala. marka culimada ila socotaan waxaan rajeynayaa inay kelimado ku daraan hadday awoodaan. hay sheekh maxamed. bismillaahir rahmaanir rahiim. xasan allah ku barakeeyo, jazakallah khayran. waa saa sheegtay dadka runtii waayadan dambe waxaa soo badanayo dadka islaam naceebka ah, islaamka naceb. walaalkaas shalay baraha bulshada waan ku arkaynay taraagaas oo meel ku tukanayo in kolley qof kas ugu dhuftay siina cararay. marka marar qaarkood saa sheegaysa way dhacdaa dadka uberka iyo waxyaalahaas wado iyo gabdhaha qaar muslimaadka ah in meel ama dad badan oo islaamka naceb. hadda kahor waxaa ka dhacda masaajidka hortiisa in dad gooynayo oo salaad ka soo baxay in dad ay xabado ku fureen, ilaahay markiis qofna xabadii kuma dhicin. marka waayadan dambe oo sidoo Trump waddanka u qabsaday
waqtigii hore iyo waqtiganba way soo tarayaan. waxaa arkaysaa social media in soomaalida xataa si gooni ah loo taageeraynayo. aad arkaysaa dadka qaar soomaali naceeb iyo islaan naceeb badan inay soo badanayaan. marka sidaa sheegtay waa sax in la taxadaro oo qofka hadduu salaada inuu masjid raadsado. hadda gobolkeena Seattle meel kasta masaajid ka furan. qofka intuu Google gareeyo inuu ku soo tukado sayfa shaqadiisa dib ugu noqdo sida ugu wanaagsan. haddii kale gurigiisa uu salaadii la aado. haddii kale meel oo ama dhib badan uusan kala kulmaynin inuu raadsado. laakiin inaad mararka qaarkood dadka muslimiinta xataa way iska fududaystaan. ilaboorka waxaa arkaysaa geedkii laga gelaya dad iskaga dukanayo. mar waxaa arkaysaa meelaha tareen meel uu ka agdhowya qof salliga iska dhigtay oo baabuurka intuu dhigtay. marka runtii khatar badanaa dhacayso. dadkan oo dad hubaysanayaa badan in dadka la shoodgareeyo oo risaas intii xabada lagu furo laga cararo dhibaato badan. marka dadka siiba gabdhaha muslimiinta inay ka taxadaraan oo qofku wadciga jiro iyo xaaladda jiro qofka uu qiimeeyo. runtii khatarta way soo badanaysaa. midda kalena waxaan ku dari lahaa maraakista islaamiga oo kale runtii meelaha qaar marmar taxadarka aad ayuu yaryahay is leedahay. dad kun ka badan ama 500 ay ku tukanayso. masaajidda kale oo qaar waa arkaysaa in security la sameeyo maalin iyo habeenba iridda taagan yihiin. laakiin masaajideenna badankood ma lahan safety runtii iyo taxadar badan ka muuqdo ama hubaysan. ilaahay naguma keeno. laakiin dadka muslimiinta taxadaraan meelaha maraakista laga taxadaro. dugsiyada carruurta badan dhigtaa laga taxadaro. gabdhaha waxaa arkaysaa muslimaadka mararka qaarkood waqti dambe habeenada ama meelo qaar gaastishinaa ama meelo runtii marayo oo xijaaban. runtii khatartan way badan tahay in ay taxadar badan la muujiyo. waa sidaa sheegtay. marka fallahu khayrun xaafida ilaahay na xafido. jazaakum allahu khayran. shukran sheekh xasan insha allah. marka aan taxadarna insha allah muhiimadda uun in la taxadaro gaar ahaan sidaan hore u sheegno markii lagu tukanayo meelaha public ah. magaaladan haddaan u soconno jimcadan ku tukan doonaa insha allah. salaada khudbadan ku tukan doonaa jimcada. waxaan isku dayi doonaa de markaan magaalada tagnana inaan bal idinla wadaagno communitiga magaalada degan iyo siday u nool yihiin hadday noo suura gasho wey insha allah. rag badan oo akhyaar oo magaalada degan aan soo dhoweyn doono na sugaya oo madaxda ka mid ah communitiga organizationo waaweyn meesha maamulo oo u khidmeeyo bulshada ayaan isku dayi doonaa inaan la qadayna maanta. marka hadday suurto gasho waaye waxaan isku dayi doonaa inaan interview ka qabanno. waxaan isku dayi doonaa inaan magaalada idinla wadaagno insha allahu. marka jimco wanaagsan ha la isku soo duceeyo halana la taxadaro insha allah. haddana xoogaa bal nala daawada bal siday u qurxan tahay waddadan aan ku soconno iyo abuurista ilaahi subxana wa tacaala yacni geedaha buuraha bal nala daawada. subxaana allah ilahi subxana wa tacala abuuristiisa markaad fiirisid runtii waxaad dareemaysaa awoodda allah subxaana wa tacaala ayaa ku tadabburaysaa. marka aad baa idiin salaamaynaa walaalayaal. jimco wanaagsan. waa inuu Portland haddii ay suuro gashana inaan barnaamijyada kaga diyaarino insha allah tacaala. marka waa inuu Portland insha allah. jimco wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. gargaras way soo